وعشر كان اللوات MS Excel كورسات waxaan ku baran doonaa MS Excel basic to advance dad nagu cusub tahay nagu soo biir dad naga daawanaysid TikTok-ga follow-dii laaftaan hala dhaafin hada YouTube naga daawanaysidna subscribe noo saar cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay Excel overview waxaan ku baran doonaa ribbon sheet iyo waxyaalaha hoos imaanaya Excel overview waa aragti guud oo macnaha laga bixinayo Excel-ka shayga waxaa fiican intaad gudaha gulin ka hor inaad ka haysato overview okay Excel overview markaan ka hadlayno Excel-ka sidiisaba istaraatiiji ahaan wuxuu ka kooban yahay laba qaybood waa ribbon iyo sheet ayuu ka kooban yahay ribbon waxaa la isku dhahaa dhammaan qaybahan kore dhan waxaa la ribbon sheetna intaa kala soo hartay sheet ayaa la isku dhahaa okay ribbonka waxaa soo hoosgalayo quick access toolbar waa qaybtan kore tabs ayaa ku xigo tabs waa quick access toolbar qaybta ka hoose ayaa tabs la dhahaa waxaa ku sii xigo groups waa qaybahan halkan laga bilaabo ilaa halkan laga gaaro waxaa la dhahaa groups ayaa la dhahaa ilaa halkan groups ayaa la dhahaa okay command ayaa noo haray command waxaa waa qaybtan way ilaa laga gaaro outsum-kan waxaa la dhahaa intan command ayaa la dhahaa hadda saan filayo magacyadooda waa kala baratay aad ayaan ku anfici doontaa sidoo kale waxyaalahan dhan hadda aan sheegayno qaabka loo isticmaalayo kulli way noo socdaan insha Allah sheet markaan imaano sheetka wuxuu ka kooban yahay sheetka waa warqad waxay ka kooban tahay waa rows and column ay ka kooban tahay warqadda hadda kuu muuqato waxay la soo tahay buggan exercise-ka mathematic bugga xisaabaadka marka ay la mid tahay waxay leedahay row and column rowga waa markaad dhinacaas taago G5-kan waxaa la row ayaa la row column joog way markuu soo taagay waxa dhaysa waa column way waxaa la hadaan taabana column way row hadii ay rabtid midkan waa row kan waa row soo kale okay hadda row iyo column kala fahantaa malena name box qaybtan la qalin falaarta marka halka aan geeyo halka waxa ka muuqanayo name box ayaa la dhahaa okay waxa kale jira waxa la cell reference waxa loo jeedaa hadda waxaan joogaa halkan cell reference ay qoran tahay saa u jeedo column-kan aan joogo column kee way column C aan joogaa okay dhinaca hadaadana numberka aan joogo number kee way asagana 7 way halkan maxaa qoran C7 halkan marka waxa la cell reference aad ku anfaca cell-ka aad joogto waa inaad garan kartaa reference-giisa haddii kan aan tago muxuu noqonayaa C ayaan joogaa column C ayaan joogaa numberka ku aadan muxuu yahay waa 8 halkan maxaa ku qoran waxaa qoran C8 marka waxa waa cell reference okay multiple sheets amaano sheet waa warqad Excel-ka marka sida soo furto oo new ah dhahdo mid cusub furto si automatic wuxuu ku sameeynaa sheet ayuu ku sameeynaa sheet 1 ayuu ku sameeynaa haddii marka multiple sheet ay rabtid oo aad warqado kale ku dirsanayso maxaa sameynaysaa salaan meesha ay qortay new sheet-ka ayaad click siinaysaa dan saa u jeedid waxa ku soo tirsan warqad kale marka warqadan waxa ku dirsan kartaa waxa doonto tan soo kale waxa doonto ku dirsan kartaa mid kale marka ku dirsan plus baad dhaysaa mid kale ku dirsan plus ayaad leedahay okay sheet-kan sidee magaca uu bedeli karaa right click aad leedahay kadib waa kana rename ma dhigi kartaa rename magaca ka bedeli kartaa xisaabaad asoo qornaa xisaabaad waa ka magaca ka bedeli okay maxaa kale ku sameyn kartaa rename waan ku sameynay haddii halkan aad doonto inaad sheet kale soo geliso warqad kale labadan dhexdooda rabta inaad sheet gelisid kana imaanaysa right click aad leedahay kadib maxaa leedahay insert saa u jeedo sheet dooro ayuu ku leeyahay waagan worksheet aan dhahay aka ku soo galay soo jeedo labadan dhexdooda ayaan sheet kale soo geliyay oo sheet 5 okay maxaa kale ka bedeli karaa sheet-ka waxaa kaloo sameyn karaa delete mid hadaan soo geliyay delete gareynaa right click baan leeyahay kadib maxaan dhahayaa delete aan leeyahay markaas maxaa kaloo ka bedeli karaa right click marka move ku sameyn kartaa click aad leedahay kadib waa move gareyn kartaa ama waa copy gareyn kartaa labadaba waa sameyn kartaa inaad move gareyso oo qaado iyo inaad copy gareyso ujeedada xisaabaad 2 ayaa soo baxay meesha sameeyay xisaabaad 1 oo kan kii hore waay kan hadda kan markaas aan copy gareyno okay waxaan kaloo sameyn karnaa tab color-ka ka bedeli kartaa color-ka ayaa ka bedeli kartaa ujeedo color-ka ka bedeli haddii aan rabo ka waran in hal mar aan ka wada bedelo saddexdan hal mar color-ka inaan ka bedelaan rabo midaan imaanaya waxaan qabanayaa shift haya then mid ugu dambaysan ka tagaa right click leeyahay kadib tab color kadibna color-ka doono ayaan ku dhufanayaa saa u jeedid color-ka ay wada qaadanayaan kulligood hal hab laga mtigin kulli color-ka wada qaadanaya kulligood marka la kala dhan noqdaan haddii hal hab color gooni aan ka dhigayna waan tagayaa then tab color and then color-kan doono ayaan ku bedelaa saa u jeedid you see now qaabkaas marka color-ka loogu bedeli karo hadaa u baahdana color-ka ku bedesho okay waxa sameyn kartaa waxa la hide oo qarin kartaa
hide ayaad ku dhufanaysaa then waa ka qarsoomaysaa markaa soo muujinaysidna unhide ayaad leedahay oo ka kuu saaraya kadib okay leedahay saasuu kugu soo laabanaya waxaan maleynaya in la fahmay sida loo qariyo iyo markaas sida haddana loo soo muujiyo waxaa ku samayn kartaa project sheet samayn kartaa oo waa xiri kartaa warqadda dhan halkaana bingo ku xiraysaa 1 2 3 okay aad leedahay 1 2 3 okay hadda warqaddan way xiran tahay oo waxaa loola jeedaa warqadda waxba looguma dari karo saa ujeedid wuu diidaya qaabkaas marka warqadda u xiraysaa qaabkee loo furaayo markaa rabto inaad furtid right click un baa leedahay kadib waxaa leedahay unprotected sheet aa leedahay kadib 1 2 3 aa ku xirtay ama passwordkii ayaad ka furaysaa hadda waa ka wax waan qori karaa intaas waxaan rajeynaa in la isla fahmin okay halkan waxaa noo haray view codeka marka waqti kale ayaan arki doonaa okay qaybtan aan imaano wuxuu leeyahay excelka laba qayb laba scroll bar yalla qaybtan kan waa left and right dhinaca bidix waa wadi kartaa dhinaca midig waa wadi kartaa dhinaca bidixna soo kale waa wadi kartaa wuxuu kaloo leeyahay up and down kor iyo hoos ayaad wadi kartaa excelka okay wuxuu leeyahay zoom bar meel laga weyneeyo oo laga yareeyo shaashadda waa qabanaysaa hadda saa jeedi waa weynanaysaa inta balasta waa ku celcelinaysaa ama kan intaa qoota dhinaca ujinaysaa markaa yareynaysid mensta ku celcelinaysaa ama waa soo qaban kartaa toos ayaad saas ujiisi kartaa aad u yaraanaysaa marka waxaa la zoom bar ayaa la qaybtan waa view bar waaye ama view tab saddex qayb ay kooban tahay qaybtan hore waxaa la normal waa sida hadda aniga aan isticmaalayno qaybtan kale waa page layout qaabkaas ayuu noqonayaa qaybta xigto wuxuu ka noqonaa waa page preview haddaa ku dhufato asna qaabkaas ayuu noqonayaa marka shaashadda sidan haddaa u imaatid waa inaad isticmaashaa ama click aasisaa normal then qaabkaas ayuu noqon doonaa okay qaybtan kor waxaa la formula bar ayaa la dhahaa qaybtan waa meesha formulaha ku qori karto waa yareyn kartaa waana weyneyn kartaa halkaana click siinaa waa kaa soo weynana waana yareynaa waxaa la formula bar ayaa la dhahaa markaad formulayaasha aan qori doono ayaan arki doonaa cashirka xiga la socda insha allah haddaan ugu cusubtaan ugu soo biir wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu